sidee ayaad ku ogaan kartaa nooca timaagu yahay? Kama hadlayo jileec iyo adeeg. Waxaan ka hadlayaa halka ay timaha ka soo jeedaan ama groupka ka tirsan yihiin. oo Motinho ka lifestyle-ka soo dhawaada. Qaybta ugu horeysa ee timaha waa timaha loo yaqaano straight hair. Timahan waxay u kala baxaan saddex nooc. Waxaan la yiraahdaa 1A, 1B iyo 1C. Waxa saddexda nooc ee 1A, 1B, 1C ee straight hairku ay ka siman yihiin in timaha dhumucdooda hore ilaa xaggeeda dambe ay yihiin toos. Sidoo kale way dhalaalaan, way jilicsan yihiin. Sidoo kale dhumucdoodu waa khafiif. waxa inta dheer oo timahan u gaar yihiin humidity-ga ama kuleylka way iska xijiyaan oo maaha timo si fudud ku qalalaya. ugu dambeyn nooca timaha hadii la maydho ma duuduumayaan ama ma qalqalocsamayaan ama sidoo kale ma isku dhegdhegayaan. So timahan badanka xitaa hadii aad tiraahdo fade ama shanlayso xitaa kuma dhegayso bahasha aad ku shanlaysanaysa. waa timo straight ah. nooca labaad ee soo qaadana waa timaha loo yaqaano wavy hair type. timahan iyaguna sidoo kale waxa kala baxaan saddex nooc. waa 2A, waa 2B, waa 2C. timahan waxay kuwii hore kaga duwan yihiin ama noocii hore timaha soo sheegnay. timahan waa timo qalqalocsamaya. Okay? oo timahan marka la maydho ama marka la fiirayo waxay noqonayaan sida muujada oo kale camal. yacni tuuro ay yeelanayaan. ama sidoo kale timahan waxa arkaysaa in yaro sare iyo in yaro hoose, in yaro sare. yacni inay timahan kala sarsareynayaan. sidoo kale timahan qaradooda iyaguna waa kuwo fudud ama khafiifa. timahan waxay leeyihiin in yar oo saliid ah. laakiin marka ay qalalaan timahan saliidda ama qoyaanka ama dhalaalka gebi ahaantii waa ka baxaya. waxay noqonayaan timo qalalan. halka timo hore ay ahaayeen timo markasta iska dhalaalaya ama timo markasta aan maxaa la yiraahdaa qalalayn. timahan wavigu iyagu waxa weeye waa timo qalalaya markaba. nooca saddexaad ee timaha ay soo qaadana waa timaha loo yaqaano curly hair. timahan sidoo kale iyaguna saddex nooc oo kala duwan bay leeyihiin. waa 3A, waa 3B iyo sidoo kale 3C. runtii timahani waxay kaga duwan yihiin labadii nooc ee hore ee aan soo sheegnay ee timaha ahaa. timahani waa timo cufan ama maxaa la ka qarawin kuwii hore. timahan waxay kaga duwanaanayaan, waxay yeelanayaan bulbul ama sidoo kale waa ay balaanayaan ama afeedid ama hafeedin. badanka timahan waa timaha laablaama ama saa duuduuma. haddaad timaha saasoo qabato timahan way laablaamayaan. sidoo kale timahan haddii aad maydho iyo haddii aanad maydhinba caaradooda timahan way qalalaysaa. timahan way adag tahay inaad feedho maadaama ay noqonayaan kuwa laablaamaya waqti badanna ay kaa qaadanayso inaad maydho. nooca timaha ee u dambeeya soo qaadana waa timaha loo yaqaano king hair ama kind hair. timaha noocani iyaguna saddex nooc oo kale ay ku kala baxaan. waa 4A, waa 4B iyo 4C. runtii timahan waxay kuwii hore oo kale ay kaga duwan yihiin oo ay u gaar yihiin. timahan way ka qara adag yihiin, sidoo kale way ka adag yihiin, sidoo kale way ka cufan yihiin. sidoo kale timahan in aad feedho ama aad shanlayso iyagana aad bay u adkaanayaan. sidoo kale timahan koritaanka ama inay koraan iyagana aad bay ugu adkaataa oo muddo badan ayaa ay ku soo baxaan. sidoo kale timahan way isku dhegdhegaan oo way isku naban yihiin. oo sidoo kalena xitaa haddii iyaga oo timo waaweyn ay yihiin aad soo qabato halkan ayay imanayaan. haddii aad sii daysidna halkeeda ay ku noqonayaan. waxa weeye timaha waa timo aad iskugu cufan oo isku dhegsan. haddii aad islaado shanlayso ama feedhna runtii aad bay u adkaanaysaa, waxay kaa qaadanaysaa waqti badan. bal adiguna la wadaag afarta timood ayaan soo sheegnay kuwee ayaad ka tirsan tahay.